السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربانا سحابتين يوتيوب كا جانل كحرن باركا 252 هابين وناسن waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub ku saabsan naadiga kooxda kubadda cagta Barcelona. Caawa maxaa ka cusub kooxda kubadda cagta Barcelona? Falan hadaa janaalka Barca 252 ku cusub taas subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalina soo socda. Muuqaalkan shir leh maazinid kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u joojisay tababarkii iyo howlihii kale la xiriira naadiga kooxda Barcelona sababa la xiriira cudurka coronavirus. Ciyaartooyda ayaa sii wada doona tababarka ayagoo guriga ku tababari doonaan sida ay kooxda xaqiijisay. Sidoo kale kulanka guddiga kooxda oo la qorsheeyay inuu dhaco Isniinta waa la kansalay sababo la xiriira caabuqa coronavirus. Barcelona ma ciyaari doonto wax ciyaar ah bisha Maarso sida ay xaqiijisay kooxda kubadda cagta Barcelona. UEFA Champions League ayaa ku dhawaaqday dhammaan kulamada Champions League ee isbuuca soo socda la ciyaari lahaa in dib loo dhigay sababo la xiriira caabuqa coronavirus. Waxaa la rajeynayaa in La Liga dib u bilowdo 5 Abriil ama lama hubo waxa dhici doono. Sidoo kale tartanka UEFA Champions League waxaa la filayaa in dib u bilowdo bisha Abriil 7 ama 8. waa kee qodobka ugu muhiimsan ee ku soo jiitay taageere dhanka komitiga noo soo rab aragtidaada waa muhiim. Sidoo kale ha iloobin inaad warbixintan share dhahdo aad gaarsiiso taageere kooxda kubadda cagta Barcelona. Muuqaalkan yar aan kaga hadlaynay kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaartooydooda oo fasax siisay si loo taxadaro cudurka caabuqa coronavirus. fadlan janaalka Barca 252 hadaa ku cusub tahay subscribe saaro intaan muuqaalka xiga isku arki doono. sidaas iyo nabadgelyo.